xirfadan oo ahayd mid lagu daafurayay mashruuca sharciyeynta maamulka iyo maareynta dhululka Jubbaland isla markaasina ay ka dhacaysay xarunta degmada Kismaayo ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan wasiiro xildhibaano gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose kan degmada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ugu horeyn waxaa la soo dhaweynaa madasha ka jeediyay duqa degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajira iyo gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Gooni iyagoona sheegay in xafiiskani cusub uu wax badan u tari doona shacabka Jubbaland haddii maxaan ku yiraahdaa kalena waxa laga jeegareynaya wadooyin inuu galay inuu dhul kala galay inuu farsamooyinkaas oo dhan baa la eegaya marka ma dhici doonto qof inuu inta yimaado soo aan cidna la socodsiin dhul iska dhisto dhulkaas sharci darro noqonaya barnaamijkan oo in muddo soo socday runtii in muddaana dadku sugahayay caqabadaha ugu badan ee haysta shacabka iyo dawladda uu ahaa arinta dhulka ayaa maanta la daahfuray shaqadeedii iyo nidaamka u shaqayn lahayd waa laga soo hadlay gudoomiyaha degmada ka soo hadlay dadka waxa laga rabaa inay sharciga u hoggaansamaan wasiirka hawlaha guud iyo guriyeenta maamulka Jubbaland injineer Axmed Ismaaciil oo dhankiisa munaasabada daafurka ka hadlay ayaa sharaxay qaabka uu xafiiskani ku shaqayn doona isagoo shacabka Jubbaland ugu baaqay inay ku kalsoonaadaan guddiga la soo xulay dhulka sharciyeyntiisu waxay ka bilaabanaysaa xafiiskaas diiwaangelinta markaad foomka buuxiso oo diiwaangelinta foomka ka buuxiso dhulkaasi ama wuxuu noqonayaa dhul sharciyadiisu saxanta oo sharci leh ama wuxuu noqonayaa dhul muran ka taagan yahay ama dhul wabasiiba oo qof degoon cidina isku haysan ama kuwa basiibo la isku haysto dhammaantood wax alla wixii dhul arintiisa ah oo ama hal la isku haysto ama yaan la isku haysanin horta halkaas laga diiwaan gelinayaa qof walba waa laga rabaa inuu foomka buuxiyo oo uu maro procedure-ka hore ilaa inuu foomka buuxiyo dhulkiisa survey lagu soo sameeyo kadib waa ma noqonayaa dhul la isku haysto oo sharcigiisa la isku haysto maxkamadda aadaya ka kooban yahay 11 qof iyadoo la eegayo macnaha inuusan wax musuqa ama dhiba ama